waxaa la yidhi isxisaabi intaan lagu xisaabin intaan waxaa way hordhacaya ay tahay annagu saaka 9kii subaxnimo ayaa nimid halkan 9kii subaxnimo ayaa nimid guddoomiye adiguna waa joogta haddii la rabo inaan shacabka Soomaaliyeed aan ku matelno waxaan jeclaan lahaa haddaad baarlamaankan maanta golaha shacabka aad guddoomiye ka noqoto nasiib ilaahay kaaga dhigay waxyaabaha ugu horeeyo isbeddelka muuqda aad sameyn karto waxay tahay in waqtiga la ilaaliyo guddoomiye in waqtiga ilaaliyo annaga halkan shaqo ayaa u nimid in qofna 9ka subaxnimo uu yimaado qofna uu 6 saac yimaado wax shaqayn kara maan golaha shacabka marka guddoomiye waxaan rabaa inaad nuqdadan aad qoratid oo ah adigu ku maasan tahay saaga guddoomiyuhu 9ka subaxnimo waa fadhiyay runtii waa nasiib darro weeye ummadda Soomaaliyeed in golahoodii shacabka lagu matalayay in subax walba maalin walba 6 saac duhurnimo la bilaabo haddaad doonaysid isbeddelka rasmiga oo guddoomiyaha doonaysid inaad u hogaamisid ka bilow naftaada waa ka bilowday ku xukun oo ciqaab u sameey xildhibaankii soo daa oo xildhibaanada 9ka subaxnimo halkan soo shaqo tago taas waxa way hordhacaya ay tahay waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ama sharfaaya inaan isku xushmeyn kulligan xildhibaan ayaana in la joojiyo interdaction lagu sameeyo oo mataqaanaa mar qaarkood guddoonku sameeyo guddoonku waxa loo baahan yahay inuu xildhibaanada ixtiraamo meeshan waa la isqoraa sharaxaad uma baahna qof xildhibaan oo ummadda matalaya sharaxaad uma baahna in la isku xushmeeyo oo la isku qadarina waa cusub la arintaas ummadda Soomaaliyeed waxay naga sugaysaa waxay matalaad rasmi ah guddoomiye isbeddelkii lagu doortayna waxaan rajaynayaa inaad ka dhabaysid oo nasiib aad u yeelato muddada koobana noo hartay baarlamaanka 10aad inaad ugu hogaamisid sharciga iyo shuruucda dalka u degsan midda kale aad guddoomiye isbeddelkaaga aad ugu doortay waxaa jirta qorshe halkan ka soo jeediyay oo ahaa Constituency Development Fund waxa la yiraahdo CDF oo aad ku awoodeynaysid xildhibaanada mar walba arintaa waa ku soo ceshaa haddaan doonayna dawladda federaalka in lagu xiro shacabka Soomaaliyeed oo aad guddoonkeena sharafta leh aad ugu hogaamisid lacag fara badan maahan waa 2,750,000 wey waa la heli karaa 2,750,000 wey 10,000 oo dollar ina xildhibaankii aan ku bilowno 10,000 oo dollar la siiyo sanadkii labada kala fadhi min 5,000 oo dollar xildhibaankii loo dhiibo oo deegaankiisa ku aado baahida deegaankiisa ka tarjumo hadda arintan aan ku bilowno hadda fatahaada iyo dhamaan xildhibaankii horeeyay inuu Cabdi Cali ka hadlay aan ku noqono deegaankeena ku noqonayno imagine fakr maskaxda balaariya 5,000 macno kulama laag 5,000 intaad deegaanka kula noqotid oo aad abaaraha iyo deegaanka iyo soonka aad la qaybsatid dawladdii shacabkii baad ku xiraysaa shacabkii dawladda shacabkii dawladda ayaa isku xirmanaya lacag fara badan ma aha wasku dhafta 200 waa 2,750,000 dollar wey in ka badan mar rabo si qalad ku baxda awood bay idin yeelaysaa oo hadda awoodiina baarlamaanka annaga waxa naga qaatay maamul goboleedka naga qaatay awoodiina haddii xildhibaanka la empower gareeyo xildhibaanka awood loo geliyo oo 5,000 kalfadhi ka sixir ma la siiyo oo deegaan ku xirmo oo dawladnimada uga sheekeeyo oo town hall meeting shacabkii la kulmiyo oo la kulmo oo u sharax waxa kalfadhiga noo qabsoomay isku xirnaanshaha dawladnimada bilaabato kursigan uu ku fadhiyo guddoomiyaha kor buu sii kacay awooddeena kor bay u kacaysaa dawladda federaalka awood bay yeelanaysaa haddii kala dawlad goboleed ay noo tilinaay waan is awood gareeyna awood anaga la budgetka hal shay ayaa awood u leenahay baarlamaan ogaada halkaasna laga ansaxay awooddeena waa yaraataa wuxuu ku hartaa kaliya kor joogteen waa awoodda miisaaniyadda waa awooddan gaarka u leenahay wey awooddeena aan garanno yaa la guddoomiye xeerasaadka imaan doona waa ku celinayaan arrintan arrin passion bay tahay Constituency Development Fund maalmo baxa maqashin xildhibaanada hadda Kenya loo faaray xildhibaan Yuusuf Xasan oo kale oo hadda islii wax badan ka sameeyay xildhibaanada Kenya saas ayaa la sameeyaa xildhibaan ka horeeyay erida markuu xukuumay Yuusuf Xasan lacagta ay si xun u isticmaali jiray Yuusuf hadda lacagta ay ku saxay wadooyinkii ku sameeyay waa arkeen anigu waxaan dhiiraanaysaa awood gareeno xildhibaano awood aan isku yeelno Constituency Development Fund budgetkeena miisaaniyadda 2019 la soo geliyo annaga ayaa budget iskale aan ku darsano waa 2,750,000 kaliya weey aan awood isku yeelno awoodna isticmaalno dadka shacabka Soomaaliyeed fatahaadu gaartana aad baan ugu xumaanaya isla xisaabta kale annaga iska bilawno 9ka socon markaan imaadno shaqo aan galno in martaqaana wana kala yaaco shacabka Soomaaliyeedna mushaarkooda qaadano wax macquul ma shaqa loo yimid dalkan aan shaqeeyno waana maasantiin